mudanayaal iyo marwooyin marti sharafta iyo dhammaan bulshada quruxda badan ee caawa halka nagula sugan dhammaantiin waxaan idinku soo dhaweynaynaa munaasabadda quruxda badan ee aan ku xusayno 28 guuradii ka soo wareegtay maalintii Puntland dhidibada loo aasay ee 1998 Puntland waxay muddadaas 28 sano ah door muhiim ah ka qaadatay nabadda dawlad dhiska iyo hirgelinta nidaamka dawladda federaalka Soomaaliya sidaas daraadeed munaasabadda tan ma aha sanad guuro oo qoriya balse waxaan dhihi karaa waa fursad aynu ku xusayno taariikhdeena horumarkeena midnimadeena iyo rajada aynu ka qabno mustaqbalka waxaan idinka raali gelinayaa dib u dhac ku yimi munaasabaddan qabsoomitaankeeda maadaama munaasabadda sanad guurada Puntland ay tahay 1 Agosto sababo la xiriira bulshada oo shaqooyin iyo hawlo kala duwan ku mashquulsanayd iyo munaasabadda tan sida u quruxda badan oo u baahnayd waqti iyo dadaal dheeraad ah waxaan rajaynayaa waxa farxad weyn noo ah munaasabadda tan inay tahay munaasabadii ugu horeysay ee nooceeda ah ee Puntland loogu qabto magaalada Winnipeg isla markaasna caawa ay madasha inala joogaan bulsho kala duwan oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada reer Winnipeg taasina munaasabadda tan waxay siinaysaa dhiirigelin iyo taariikh cusub waxaan rajaynayaa hadduu alla idmo sanad ka dambe iyo sanadada ka dambeeya in munaasabadda tan waqtigeeda aan ku qaban doono iyadoo inta tan ka qurux badan kana ballaaran insha Allah waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan anigoo aan kala qaadayn dadkii waqtigooda dadaalkooda maalkooda iyo fikirkooda ku bixiyay qabsoomidda munaasabadda tan sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee caawa nagu casuumay la joogitaankooda waxaan leeyahay joogitaankiinu farxad gaar ah ayuu noo leeyahay ugu dambeyn caawa waxaan rajaynayaa inay noqon doonto habeen farxadeed oo habeenada kale ka duwan habeen isdhexgal iyo habeen isbarasho iyo habeen midnimo